Any brother? showga kadib waxaan aqriyay qoraal uu ku soo qoray Twitterkiisa Shahrukh Khan oo uu ku sheegayo inuu arrimaha qaar adiga kala hadlay wuxuuna yiri showga kadib dood yar ayaan la yeeshay Dr. Zakir Naik waxayna ahayd mid aad u faa'iido badan marka waxaan rabaa inaan ogaado waa maxay hadalkaas faa'iidada leh ee dhaxmar adiga iyo Shahrukh markii barnaamijku dhamaaday kadib waxaan la hadlay Shahrukh Khan muddo ku dhow nus saac waxayna ahayd tijaabo aad u wanaagsan wax walba ka hadalna hadda ma sheegi karo sababtoo in badan oo kamid ah waxay ahaan arrimo gaar oo shakhsiyadeed anaguna muuqaalkan waa baahin doonaa waxay ahayd markii ugu horeysay oo si shakhsiyan ula kulmayo iyadoo ay jirto inaan saaxiibo wadaagno yacni aniga dad taageerahayga iyo dad taageerihiisa ahba laakiin markii ugu horeysay ahayd oo shakhsi ahaan la kulmayo waxaa jira shay aan hubanti anigu aan ku faani karo oo ah inaan ilaaliyo siyaasadayda waana inaan ku kalsoonaan wararka la ii keeno showga ka hor waxaan rumaysanahay in dad badan ay og yihiin in warbaahinta laga soo daayo sidoo kalena ay leeyihiin dad badan oo kamid ah saaxiibada Shahrukh Khan muslim multazima diinta ku toosan maaha sidoo kale islaamka kuma faraxsana sidoo kale markasta wuxuu ku hadlaa hadalla ka soo horjeeda islaamka waxyaabahaas iyo waxaas ayuu sameeyaa aniga shakhsi ahaan arrimahaasi kama maqlin telefishinka sababtoo ah telefishinka wax yar baan daawadaa balse wararku iska badnaadeen anigu waxaan raacay aayadda quraanka ee Allah ku leeyahay suuratul xujuraat suuradda 49aad aayadda 6 haddii mid faasiq war idin la imaado iska hubiya waa sida aan sameeyaba mar walba oo qof markuu ii weydiiyo ra'yigay ku aadan shay gaar ah tusaale barqadaad gabadhaas wariyaha markii weydiisay arrinta ku saabsan Usama bin Laden waxa arrimo garanayo sidoo kale haddii arrimo xun iga soo gaaraan Shahrukh Khan waxa leeyahay ilaahay laakiin barnaamijka wixii aan ku maqlay anigu kama hadlayo hadallada la isdhaafsan inta showga la joogay laakiin wixii aan ka maqlay showga waxaan dareemay iyadoo aan la eegayn ma yahay qof diinta ku toosan ama aan ku toosnayn laakiin waa ka jawaab wanaagsana in badan oo kamid ah muslimiinta oo jooga showgaas marka laga reebo Maxamed Majdi waa saaxiib ii dhow ma sha Allah waa muslim diinta Ilaahay ku toosan arinta dhinac inooga dhig ee jawaabaha uu bixinay markuu showga joogay waxay ahaayeen jawaabaha ugu wanaagsan marka la barbar dhigo muslimiinta kale halkaas joogtay waan igu waafaqsan yahay si cad in heesaha iyo jilitaanka filimada iyo qoobka ciyaarka dhammaan ay xaraan yihiin laakiin inkastoo arinta isagu sameeyo way la wanaagsan yihiin wuxuuna ii sheegay in cilmigiisu liito sidoo kale wuxuu ugu yiri si aad cilmi badan u hesho waa inaad culimada iyo shuyuukhda aad weydiisaa sidaa darteed jawaabihiisu aad bay uga wanaagsanayeen jawaabaha dad kale oo muslimiina oo showgaasi joogay showga kadib waa ii yimid wuxuu ugu yiri iyadoo laga doodayo barnaamij ku saabsan hawiyada muslimka ama qof halku ka soo jeedo wuu i weydiiyay Dr. Zakir Naik waa maxay ra'yigaaga ku aadan muhiimadda ay leedahay in garka la sii daayo koofiyada sunnadana la xirto sidaa darteed waxaan awood u yeeshay inaan tusaalayaal siiyo barnaamij wada sheekaysiyo telefishinka ma ahayn sidoo kale ma joogin gabadha wariyaha ee barqadaad sidaa darteed awood baan u yeeshay inaan walaal Shahrukh Khan wax ugu sharxo iyadoo cid hadalka iga jaraysa ay jirin tusaalihii oo ahaa markaad imtixaan galayso waxaa jira su'aalaha qaar isku darajo ah kuwana waa 10 darajo kuwa kalena waa 20 darajo haddaba qaabka muslimka gar ha lahaada ama koofiyad sunnaha xirto inkastoo aysan ahayn muhiimadda kama dambaysta ah haddana waa muhiim laga yaabay in u dhiganto 1 darajo laakiin isla dhaqankaasi adigoo ka run sheegaya noloshaada caadiga ah iyo ku hadlidda xaqa arrimahan islaamka marka la joogo markaad joogtaynayso laga yaabay in u dhiganto 10 darajo ama 5 darajo sidaa darteed iyadoo garka in la daayo aysan ahayn shayga ugu muhiimsan ee islaamka haddana waxaa kuu suuragala inaad darajada koobaad ka tagto oo aad xoogga saarto 10 darajo iyo 5 darajo ama 20 laakiin qof hadduu doono inuu gaaro darajada sare isku dayi doonaa inuu xitaa darajadan tusaale markaad galayso imtixaan kuliyadda caafimaadka inagu waxaan isku daynaa inaan helno darajada barkeed sababtoo ah waxaan doonaynaa inaan xaqiijino wax ka sarreeya 90% marka aad doonayso darajo ka sarreysa 90% arrintaas aad ayay muhiim u tahay garku waa muhiim koofiyada sunnadana waa muhiim labaduba waa qayb kamid ah sunnada laakiin midkood hadduusan garkiisa daynin ama koofiyad sunna uusan xiran suuragal inoomaha inaan dhahno muslim maaha suuragal maahan inaan dhahno muslim maaha sababtoo ah garka siima daysto ama koofiyad sunna ma xirto markaa buu yiri tusaale aad u fiican ay sheegtay tusaalaha ayaa cajabiyay waa muhiim laga yaabay in u dhiganto 1 darajo ama 2 darajo laakiin muhiimaddu waa in islaamka ku dhaqantaa arrimaha kale sida inaad runlow ahaato salaad inaad tukato inaad shirki sameeynin dhammaan arrimahan aad ay muhiim u yihiin waana saas jawaabteeda si aan ku sheegaba showga haddii qofkood aanu dangarkiisa iyadoo kamid maahan dambiyada waaweyn ee 70-ka ah waxaa jira caalim lagu magacaabo Imaam Dhahabi wuxuu kitaab ku qoray liis dheer oo dambiyada waaweyn ee 70-ka ah shirkiga ugu horeeya kadibna qof inaa xaqdarro ku disho ilaa aakhirka laga gaaro laakiin garku kamid maahan taasina macnaheedu maaha inaysan qalad ahayn garka la jaro culimada qaar waxay leeyihiin waa sunno qaarkoodna waxay leeyihiin waa waajib inaad garka sii dayso si kastoo ay ahaataba laguma tirin dambiyada waaweyn ama waxay noqonaysaa dambi yar ama waxay noqonaysaa sunno aad muhiim u ah
laakiin dembiyada waaweyn kama mid aha. waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay.